kuwo wax burburinaya oo macno darro ah. Maraykanka ayaa shirkadaha saddexdaasi waddan ku soo roga xayiraad iyadoo lagu eedeeyay inay xukuumadda Kuuriyada Waqooyi ka caawiyaan jebinta xayiraadaha caalamiga ee saaran. wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa sheegtay shalay in cunaqabataynta ay imaanayso xilli beesha caalamka looga baahan yahay inay ka wada shaqeeyaan xallinta arrinta Kuuriyada Waqooyi. xukuumadda Moscow ayaa sheegtay in cunaqabatayntu ay mijaxaabin karto wadahadallada ku saabsan burburinta hubka nukleerka ee Kuuriyada Waqooyi. Maraykanka ayaa ku eedeeyay shirkadaha ganacsi ee laga leeyahay Shiinaha iyo mid ay saami wada leeyihiin oo laga leeyahay dalka Singapore inay been abuureen dukumenti xamuul isugu jira khamri iyo sigaar lagu geeyey Kuuriyada Waqooyi. shirkadahaasi ayaa la sheegay inay ka macaasheen bucshiradaasi ilaa $1 bilyan iyo in ka badan. shirkadda laga leeyahay dalka Ruushka ayaa sidoo kale Maraykanku xayiraad saareen waxaanay ku eedeeyeen inay adeegyada dekedaha u fidisay maraakiibta wadata calanka Kuuriyada Waqooyi ee waddankaasi geeya saliidda. cunaqabatayntan ayaa xayiraysa hantida shirkadahaasi ee taala dalka Maraykanka, sidoo kale waxay ka mamnuucaysaa muwaadiniinta Maraykanka inay la macaamilaan shirkadahaasi.